wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ay hogaaminayso safiirka midowga Yurub Ambassador Tina Intelman isla markaasina ay wehelinayaan safiirka dalka Sweden u fadhiya magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo political advisor Maria kulanka wasiirka waxa ku wehelinayay wasiir ku-xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Cabdillaahi Xuseen Maxamed agaasimaha guud ee amniga Ibrahim Ali Ismaaciil iyo la taliyaha wasiirka ee dhinaca xidhiidhka hay'adaha Saciid Yuusuf Cabdi Saciid wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa si guud wafdiga ugu sharaxay nabadgelyada buuxda ee ka jirta Jamhuuriyadda Somaliland sidoo kalena wasiirka ayaa wafdiga uga waramay horumarka ka socda Somaliland taasoo ay saldhig u tahay wax wada qabsiga iyo iskaashiga dhinaca kale wasiirku waxa uu sharaxay wafdigani in ay Somaliland sanadkan u diyaar garoobayso qabashada doorashada ururada siyaasadda kuwaasi oo furmaya bisha June taasoo ah buu yiri wasiirku mid sharciya oo 10 sano mar la qabto waqtigoodina la gaaray haatan sidoo kalena ay diyaar u yihiin qabashada doorashooyinka ka dambeeya ururada wafdiga ayaa dhinacooda Somaliland ku amaanay horumarka iyo nabadgelyada ay ku talaabsatay iyadoo guud ahaan uu kulankani ku soo dhamaaday isfaham buuxa iyagoona wafdigana sheegay inay diyaar u yihiin inay Somaliland kala shaqeeyaan horumarka iyo nabadgelyada